وسورة البقرة بلو جدي بين مرينا إن شاء الله انتهينا بلابي وحين برارج لهين حاجة تفاسير تدتكوا كلا دوينهين قفوا اسكبروا مركا وحو بهاي تفاسير تكوكوبا سيدا صفوة تفاسير مختصر ابن كثير يا تفسير الجلالين أيسر التفاسير كتبتها كوكوبا marka erayada u soo ururinaysa qofka ama u sharxaysa qofka daalibka naxwaha yaqaan isagu waa ka faa'iideysan kara jumalka iyo fadhul qadiirka iyo kutubtaas intubana waa yaalana waa heli karaya waan filayaa kulli aadaabta waxa kamida in dariska qofku uu la kaashado cidii uga aqoon roon oo waqti uu ku celiyo uu sameeyo waqtigaas oo qofku uu soo faa'iideysanayo wixii uu kala ilaaway ama uu garan waayay ku celinta shayga loo yaqaan ama raacashada muraajacada wixii la garan waayo qoraal baydin ku soo qori si habeenka arbacado kale aynu marka u sheegno wixii dalabadu ay u yar baahdaan in loo iftiimiyo inta waxa si weheliya darisku أما القرآن الكريم كان لا نولاده وحياة القلوب وقلبك على قلنا علينا وقفك هؤلاء هي أعماش مالنتي وكتير هي تعبك أيا وكل أغلق يا أما وكل يا وكل عذايا استدلت هتوقفك ويا درس أوقات أفري لبعتنك الساعات وحلقة يا بين الشيطان كل دركه waxaynu uga jeednaa tafsiirka aynu fahmayno waxa si weheliya ku dhaqankii iyo inaynu maaragtay ruuxda ku qaboojino suuratul baqara waxaynu horeysiin doonaa insha Allah suuradan ahadiith ku soo arooray fadligeeda oo suuradani fadliga ay leedahay inoo cadaynayo inoo fasiraya taasoo aynu ku garan karayno miisaanka weyn ee suuradani ay leedahay هي مهمة حقا بينو يرود الدورنا سقف وقيمة قيمة هي مضنتها هي سورة البقرة يكفى إليه سجادا حديث صحيح مسلم كسجنا أبي هريرة ورينا أيه النبي قول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان على معنى الحديث gurihiina xabaalha ka dhigina waxa ku akhridaan suuratul baqara guriga suuratul baqara lagu akhriyo shaydaanku ka carara inagana waxaynu doonaynaa waa inuu shaydaanku inaga cararo malaa'igtuna way timaadaan sidaynu arki doono shaydaankuna uu ka carara meel malagimina naxariis baa taala meel shaydaanimina balaaya taala nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiid kale oo saxiixa waxa uu ku yiri oo isna muslim ku sugan quraanka akhriya maalinta qiyaamaha uu imanaya isagoo oo u ergeynaya qofkii ehelka u ahaa ama ku dhaqbi jiray maalinta qiyaamaha waliba waxa akhridaan az-zahraawayn labada bilicda badan ee quruxda badan ee qiimaha leh wa suuratu al-imraan iyo suuratu al-baqara maalinta qiyaamaha uu imanayaan labada suuradood iyagoo quraanka u horeeyo daruuraha kala ah waxay u doodayaan qofkii akhri jiray ku cibaadeysan jiray iqra'u al-baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wala tastati'uha al-badala waliba suuratu al-baqara buu nabigu gaaru si dardaarmo akhriyay qaadashadeeda oo ku celcelinteeda iyo badsashadeedu waa barako ka tagideeduna waa murugo sixir layaashuna ma karaan sidoo nabigu cadeeyay calayhi salaatu wassalaam حديث كرو الباني وحسن كنت الماما يا صحيح ابن حبان كسوغان وحو نبي عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء سلاما وسلام القرآن سورة البقرة شيء ولا بوحو الله كرس قالوا وينك عرقنا كرس بولاي تدكو آدو دنايا معان كيسية وناكيسة قرآن كرس كيس وسورة البقرة قفك سورة البقرة هبين أخرية قرقيسة كو أخرية لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال
gurigiisa shaydaanku ma soo galayo saddex habeen buu nabigu saddex haddana ku celi waligaaba wadan faa'iidooyinka suuradda ka mid tahay xadiid kale ibn mas'uud uu warinayo oo isagana Bukhari ku sugan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya labada aayadood u dambeeya suuratul baqara aamana rasuulu laga bilaabo habeen akhriya ka fataahu way ku filayin marxay kaga filayihiin nabigu ma fasirin calayhi salaatu wasalaam waxay kaga filayihiin shaydaankii bay kaga filayihiin sida horeba uu soo xusay nabigu waxa culimada qaarkoodna ay leeyihiin wardigii habeenkii baa ugu filaanaya iyo qiyaamul leylkii suuradan iyada nabigu markuu ka waramaya calayhi salaatu wasalaam xadiid kale saxiixa waxa uu qofka akhriya aayad kursida salaad walba gadaasheeda ama xagga dambe ka akhriya jannada waxa ka hor jooga inuu dhinto markuu dhinto horay buu jannada ka galaya Bukhari waxa ku sugan oo cadaynaya xadiidka Usayd ibn Hudayr warinaya radiyallahu anhu inuu nabigu tilmaamay suuradan marka la akhriyayo inay naxariis ilaahayna soo degayso malaa'igtuna soo degayso oo dhageysanayso akhrinteeda xadiidku waa saxiix weeye Usayd ibn Hudayr baa warinaya wuxuu habeenada kamida anigoo cibaadaysanaya inankaygi yaraaya yaxyana uu ag hurdo ayaan suuratul baqara akhriyay markaan yar akhriyay faras agtayda ku xidhnaa faraskaygi ayaa dhaqaaqo wareegay waan yara joojiyay haddana waan ku celiyo uu wareegay xoog buu wareegay uu dhaqdhaqaaqaya sidii wax didayo kale mar saddexaad baan ku celiyo markuu dhaqaaqay waan salaadii ka baxay halkaasaan ku joojiyay xagga saraan eego waxaan arkay dhulkii oo wada iftiimaya daruuro tirigi iftiimaya ay ka muuqanayaan nabigaan u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkuna ii sheegay inay ahaayeen waxa uu arkay daruuraha iyo iftiinkaas malaa'igtii ilaahay marka hadaad ku sii wadi lahayd waa la arki lahaa subaxdii malaa'igta iyadoo dadkaba u muuqanaysa marka malaa'igta iyo naxariistuba suuratul baqara halka lagu akhriyayo ayaa ay ku soo degaysaa siduu nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo xasan tirmidi uu ku tilmaamayo ibn Hibban iyo Khuzaymana saxiixooda ay ku soo saareen waxa uu sheegayaa suuradan qofka yaqaan inuu madax noqonayo ama hormuud madaxtinimada waxyaabaha CV-ga lagu mutaysto ayaa uu ka mid yahay suuratul baqara inuu qofku yaqaan ama xifdisan yahayba qalbu anba bixinay rasuulku sallallahu alayhi wasallam duulimaada ama koox sariya markaa uu warwaraystayo nin waliba inta uu quraan yaqaan abu weydiiyay inta sana qaana nin dhalinyaraba wuxuu intaana waan aqaana suuratul baqara waan aqaana marka rasuulku waxa uu sallallahu alayhi wasallam suuratul baqara taqaana dhaqaaji anta amiiru hada colka ka madaxahay dhaqaaji buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka taasina wuxuuna tilmaamaysaa qiimaha uu leeyahay qofka suuradan yaqaana fadhhab fa anta amiiruhum bu rasuulku yiri xadiidka sideedaad waxa uu sheegayaa suuradani waxay ahayd afgarasho weyn oo qulubta mu'miniinta lagu dhiriyo markay xaaladdu adkaato iyo afgarasho cajiib ah nabiga asxaabtiisa ka dhaxaysay ahayd halka inagu aynu kan idhaahno tollaaydi asxaabtii rasuulka ay suuradan xadiidku waa saxiix weeye Ahmed iyo Bayhaqi iyo Muslim waa ku sugan yahay kastoo lafdiga uu leeyahay Imaam Ahmed rahimahullah maalintii Xunayna asxaabtu ay jabeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay Abbas ibn Abdul Muttalib adeerkiisa wuxuu yiri Abbas oo dhawaa ragii yaacay u yeedh maxaa la oranayaa yaa asxaab as-samura yaa asxaab suuratil baqara saasa loogu yeedhaya war qoladii geedka nabiga kula heshiyo xagaa u yaacdeen id yubaayicunaka tahta ash-shajara waa maalintii adkayde sanadii lixaad Xudaybiya heshiiskii lagu galay ee muslimiintu ay nabiga gacan qaadeen in wixii uu amro ay yeelaano maka la galo oo ilaa dhimasho loo diyaar garoobo heshiiska raggii galay xagaa u yaaceen waya asxaab suuratil baqara baqara raggii yaqaanay ama ehelkaba u ahaa ee loogu talagalay inay ku dhaqmaan xagay qabteen waxana weeyaan waa suurada sida cajiibka u soo bandhigta jihaadka
ninkii axkaamta jihaadka ku yaqaanay iyo baqari siday jihaadka uga waranto xaguu maray sidoo kale Khalid ibn Walid markii uu colka hor kacayay la dagaalamayay ninkii nabinimada sheegtay ee la oran jiray Musaylimatul Kadhaab yawm al-Yamama asxaabtii iyo muslimiintii halka maray aad baa loo laayay markii dambe dib loo abaabulayay isaguna yeedhmadaas oo kale ayaa uu ku baaqay oo ugu yeedhay ansaartii iyo muhaajiriintii baa waxay isugu yeedhayeen yaa asxaaba suurati al-Baqara hatta fataha Allahu calayhim yeedhmadaasa oo inaga halkaynu tollaayay ka nidhaano iyaga tollaayadu iyo asxaaba suurati al-Baqara bay waa la soo noqday labada jeerba marka nabigu Abbas iyo markuu yiri Khalid loo yeedho colkaba labada jeerba waxay u soo laabteen si cajiib ah oo degdeg ah oo jawaabeen waxa uu lahaa imaamka la yiraahdo Khalid bin Macdan suurada wuxuu ku magacaabi jiray fustaanul quraan waa taambuuga quraanka quraanka oo dhan bay ku dul qotontaa waxay ka hadlayso quraanka oo dhan wuxuu ka hadlayo way waa barakadeeda iyo weynaanteeda iyo ahkaamteeda aad u badan daraadeed waxa uu soo naqila ama xusaa imaam Malik rahimahullah kitaabkiisa muwaddaa Abdullah ibn Umar inuu baranayay suuradan iyo fiqigeeda iyo ahkaamteeda 8 sanadood riwaaya kale waxay tilmaamaysaa in ka Soomaaligaana ku sugnayn taariikhda Umar 12 sanadood buu baqara dul fadhiyay haddaad adigu faas tahay hore u soo fadhido oo doonayso bil ama laba inaad kaga gudubto ama aad leedahay warmu inaga bilaabo ordhaca intuu iska daayo sheekh Umar ibn Khattab 12 sano suuradan dul fadhiya fiqigeeda iyo faahfaahinteeda iyo dhuuxideeda inankiisiina waxa uu dul fadhiyay Abdullah ibn Umar 8 sanadood labadoodana waxay ka mid ahaayeen asxaabta ugu badan xagga cilmiga quraanka iyo sunnada aad u yaqaan marka waxay nooga baahan tahay faham iyo dhugasho badan oo aad iyo aad qofka muslimka ah ugu dadaalo suuradan waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaabo ay suuradaha kala gooni tahay waxa ka waa adwal suura fi quraan suurada quraanka ugu dheer weey marka la isu geeyo saynu ogsoonahay oo dawaa laba tisiya dheeraad ama 5 xisbi wax ku dhaweeye suuradu waxa ku jirta aayada ugu dheer aayadaha quraanka oo safxad ama hal bog ah aayatu dayn suurada waxa ku jirta kale sida uu yiraahdo ibn Kathir rahimahullah وسورة ugu ahkaam badan ahkaamta waynu xusi doonaa qofka muslimka ay u baahan yahay ama mujtamaca muslimka ama adduunyadu waa u baahan tahay qawaaniinta iyo nidaamka suurada koobsantay ee ugu badan weey waliba aayadaha ahkaamta ka warrama marka waxa uu leeyahay waxa ku jira 1000 hukmin wa 1000 amrin wa 1000 nahyin wa 1000 khabar kun amar iyo kun nahy iyo kun hukum iyo kun khabar ورجع دوحيا ولا بقى بقى ساوي صور رمي سورة ده سين سؤال كينه وحكوا سجان سورة ده آيات دي أينو مكسوم مرينا آمن الرسول إلى أن طلب آيات ده ودم بيو دراد النبي كشجع عليه الصلاة والسلام ينقفك كفليهين وحكوا ترت سورة ده آيات دي وجدا بيسي القرآن ككريم كسودكتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية نزلت من القرآن وسقول كراجحة في علوم القرآن مرك الله يقول سورة مقعية دورة إلا هي سورة البقرة والسورة التي ذكر فيها قصة البقرة قصة دي ساعة أيها لقول حشاقي سنام القرآن ولا إله ذروة القرآن ولا إله هذا مقعية دي كم بديهن كواس وحديث كاتانا عدي آياته والله بقول يو لحية سديتنا آيات كلمتها سورة كتيرة آيات كاس أي كوبينهين ولحكن يبقول يكوبي اللواتن كلمات حرفه نواشن يلباتن كن لح بقول يصدح هي طبعا حرف ركبة سدا حافظوا في السطور وفي الصدور قرآن كساسا لابتنا الله هيا كتاب كان الله هيا إلى شنيا مركب مثل كستوق قالي هتوي ما هتو دوران وحكب بدله يا حرفيا أبى رجع ترسمها وحلا بدل كلامه مشيره مركب هديات كله فتاة طبعا أما صفر قدرته شنيا الله تنكاكم ده واحد نقول إسا لباب بقول يو كنتم كن
6,000 iyo 130 ajri ayaad leedahay 250 kun iyo siyaada ajri baad leedahay hadaad hal mar dhamayso xana laga yaabaa qofku saacad inuu ku dhameyn karo hadduu suuradan akhriyo marka suuradan intaas oo dhan baad ku helaysaa faa'iidooyinkeeda waxa ka mid ah sidaynu soo arkaynay deenu aynay sixirka ka tahay wiqaayo iyo cilaaj labadaba sixirkiyo shaydaanka wiqaayo way ka tahay oo ilaahay baa kaaga difaacaya oo culimada cilaajku sida saxda ah wuxuu daweeyaa waxyaabaha culayska ku saaraan sixirka iyo jinka iyo isha suuratul baqara kowka ah nabiga cadeeyay calayhi salaatu wasalaam marka cilaaj way tahay oo qofkii waxyaabahaas cudurrada ruuxdu ay soo gaadhaan waa lagu daaweeyaa ka hortagiina waa saas oo kale waa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed bay habboonta gurigii in lagu akhriyo siiba arooska guriga cusub xaafadaha qofku hadduu kari waayo inuu akhriyana waa inuu cajalada ku ridaayo ay iska siraadaata cajaladu siiba waqtiyada la aamusan yahay iyo habeenkii marka la seexdo waxyaabaha lataa'ifkeeda waxaa ka mid ah suuradda bartamaheeda waxa ku beegan ama dhexdhexaadkeeda aayadda ka warramaysa muslimka dhexdhexaadkiisa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummaddani waa ummad dhexdhexaad ah oo ummadaha gaabiyeyna kuma jirto kuwa xadgudbayna kuma jirto aayaddaa dhexdhexaadka sheegaysa dhexdhexaadkeeda ku beegan 142 meelahaasay noqonaysaa dee kala barhkuna 43 meelahaasaabuu haaba intaa haddii aynu kaga soo gudubno suuraddu khasaa'iskeeda iyo fadligeeda muxtawayaadkeeda aynu wax ka taaban lahayd ama waxyaabaha ay suuratulbaqara koobsatay suuraddani waxay koobsatay sharciga dadku ay u baahan yihiin intay adduunyadan joogaan ee aanay ka maarmi karaynin waajibna ku ah daruurina u ahee baahidooduba ay ku xidhantay sida caqiido wanaagsan cibaado wanaagsan cuud xalaala ama xoolo wanaagsan oo qofkii uu isticmaalo u dhaqdo iyo qoys wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo xoog military oo wanaagsan intaasoo dhan bay ka warramaysa marka waxay aada ugu baxday suuraddu nidaamka aynu soo sheegnay oo si mufasala ay u soo bandhigi doonto guud ahaanna marka la isku celceliyo waa caqiidada noocyadeedii kala duwanaayo noloshii addoomaha ilaahay uu farayo inay cibaado ka wada dhigaan dhinac walba intaa aynu soo sheegnay markaa suuraddu waxyaabahay soo bandhigtay bay ka mid tahay nidaamka caqaa'idka cibaadaadka mucaamalaadka akhlaaqda arrimaha qoyska siiba ood arki doonto furiinkii iyo cadadbixii iyo ilmihii la jaqsiinaya iyo xuquuqa zawjiya dadka la guursan kara iyo dadkaan la guursan karin suuraddu waxay aada uga warrantay taariikhdii bani aadamkani uu ka soo bilaabmay inaanu iska abuurmin daayeerna ka imanin sida gaaladu ay ku doodaan laakiin ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala xikmadna uga jeeday marka waa inaga arki doonnaa nebi aadam oo ilaahay abuuray oo abuurkiisana malaa'igta uu sii ogeysiiyey iyo khaliifada laga dhigay waa suuraddu waxay tilmaamaysaa inta ifkan la joogay in dagaal lagu jirayo dee ibliis baaba taaganba oo aabbaheen weerar ku qaaday marka ha isdhiganin ninkii isaga ahaa ee aabbihii inoogu weynaa dagaalka la galee xaasidee ku kibray weli uu taagan yahay isaga iyo faraciisa suuraddu waxay ka warrantay soo bandhigtay waxaan la yidhaahdaa adduunyadu waxa loo qofku u baahan yahay inuu khibrad helo waayo aragnimo hore oo dadka qaarkood ay soo mareen maxaa nolosha laga ilaalinayaa maxaase nolosha inta la qaadanayo lagu dadaalayaa labadaaba waxa kaa sixi kara maadigii oo lagu sharxo saa daraaddeed shayga la yidhaahdo taariikhda waxaa la yidhahdaa taariikhdu wax sahlan maaha taariikhda hore waxaa lagu saxaa mustaqbalka waxaa la yidhahdaa taariikhu mir'aat almustaqbalu mir'aat almaadi mir'aat almustaqbal waktiga hore tegay waa muraayadda waktiga soo socda marka aada buu qur-aanku uga warramaa taariikhda suuraddani waa suuradda ugu badan ee ka warramaysa taariikhda reer banu israa'iil ama nimanka yuhuudda la yidhaahdo alyahuudu fi lqur'aan yuhuuddu muuqaalkay leeyihiin qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu cajiibsana soo bandhigaysa weeye yuhuudda aada arkaysa taariikhdooda aynu hayno maantana aynu arkayno adduunyaduna khadiyaanka ka taagan tahay suuraddaasaad sawirkooda ka arki karaysa weliba wax cajiiba
iyagoo kuwii taariikhdan lahaa ay tegeen ayaa markuu ilaahay la hadlayo kuwii nebi maxamed wakhtigiisii joogay buu la hadlayay iyagoo tallaabooyin waxyaabaha laga warramayaana wixii hore ay yihiin leanna mar walba yuhuuddu way wada socdaan kuwii hore iyo kuwii dambe marka khatarta ay leeyihiin iyo ceebahooda in lagu baraarugo iyo in la iska ilaaliyo awgeed suuraddu aad bay uga warrantay 3 meelood oo meel wax ka badan suuradda ayaa soo bandhigaya laga bilaabay yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahum ilaa halkaa laga gaadho intaa qisadoodaa soconaysa suuraddu waxaynu arki doonaa qisooyin bay xagga dambe kusoo bandhigaysaa ilaa 4-5 qiso oo iyaguna dhammaantood tilmaamaya awoodda ilaahay iyo inuu ilaahay aakhiro dadka soo noolaynayo dad badani nolosha aakhiro iyo diidmada ay aakhiro diideen daliilkii sugayay aakhiro iyo jiritaankeeda dhowr qisoo soo bandhigaya qisadii nebi ibraahim iyo xayawaankii ilaahay uu nooleynaya markaa dee ilaahay isha u saaray qisadii cusayr taaluut iyo qisadiisa qisaskaasoo dhammina xikmaddaasi xambaarsan yihin dhaqaalaha bani aadamku wax soo saarkiisa siduu soo saari karaa inuu xalaal noqdo oo ribada ka ilaaliyo iyo wixii uu haystay meelaha ugu fiican ee uu ku bixin karo iyo aadaabta uu ku bixin karo iyo wixii la kala amahanayay heshiisyadii la galayay ballamaha laga bilaabo aayadaha infaaq iyo deeqda ka warramaya aayaatu riba aayatu dayn intaasoo dhammi dhaqaalaha saxan ayay suuradda ka warrami doonaan muuminiinta ama awliyada ilaahay ammaanta leh iyo astaamahooda qaaliga ah iyo inaynu ka mid noqonno laynagu dhiiri gelinayo iyo inuu ilaahay towbadiisa diyaar inoola yahay labada aayadood u dambeeya ayaa ka warrami doona adduunkan lagu waari maayo warun baa ka hadhaye inaynu iska diyaar garowno mid aakhiro la idhaa iyo qiyaamana u dambeeyo ayaa ilaahay u xusi doonaa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marnaba qiyaamaha la ilaawin xalla waxa aynu islaba rogayno aynu soconayno aynu dhisayno aynu dhaqayno waxa ka dambeeya un su-aal iyo xisaab suuraddu arrimaha ay soo bandhigtay kuwaas weeye tafsiirkeeduna halkaasuu inooga sii socon doonaa in sha allah wallahu subxaanaه wa tacala aclam